السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام كديب وحان إذن الله هاي سودو هذا مع شقينتا UFC دا وحان إذن الله هاي عيار كل معهن وحان يسو جيدين دونا وحان يسو قدبين دونا ميد كميدا عياريهان هذا UFC دا عيارة قيبتي دا لايد ويتكا وسي وناكسان ودقالا مايا دقالا دي سي وناكسان يعني مالمي سي وحنا يعني يسو قدبين دونا وعياريهان والبوكار مال وقراعي يعني hal mar ayadoo soo guuldareysanaya ma arki doontaan bestigiisa ayaa idiin soo gudbin doonaa insha allah. ciyaaryahankaasi waxaa loo yaqaanaa Ricardo Lemas, waa ciyaaryahan naanees ahaanna ay u yaqaanaan The Belly. wiilkan Amerikaanka ah wuxuu dhashay 1982 waana 38 jir. The Belly ama Ricardo Lemas waxaa weeyaan nin ciyaaray 28 kulan ayuu ciyaaray. macluumaadkan waa idin wasiinaya dhammaan insha Allah oo waa idin dhameystiri doonaa guulihiisa iyo guuldaradiisa. Good. Okay, waxaan leeyahay marka ku soo dhawaada daawasho wacan marka hore. inta ciyaarta inoo socoto waxaan sameyn doonaa macluumaadkiisa ayaan sii dhameystiri doonaa. waad mahadsantihiin la socodkiina iyo daawashada aad daawanaysaan kanaalka Afras Video Production iyo weliba UFC da. waxaan leeyahay mar kale soo dhawaada waa idin jeclahay. ciyaarteena waa inoo socotaa. Good. ninkan waxaa loo yaqaanaa marka Ricardo Lemas, magaciisa dhameystiran dabcan waa sida. Good. waa inta badan magacyada loo soo koobo weeyaan aan dhahay magaciisa dhameystiran wuxuu noqonayaa si kala weeyaan, laakiin waxaan leeyahay intaasaa loo yaqaanaa oo waa magaca oo caanka ku yahay markii la dhaho labada magac. markii ninkan 28 oo ciyaaray 28 kulan oo ciyaaray waxay ka dhigan tahay in 20 kamid oo adkaaday. Amazing wallah. ninkan marka waa kana waxyaabaha sameynayna waa daawanayna ajiib. ciyaaryahankani 20 kulan oo badiyay saddex nooc oo waxaa jirto oo guusha loo xaqiijiyo oo micnihii qofkani wuu guuleystay lagu cadeeyo. waxaad maqashaa submission, waxaad maqashaa knockout, waxaad maqashaa decision. ninkan 20 kulan wuu badiyay aan ku leeyahay 6 kamida wuxuu ku badiyay knockout, 5 kamida wuxuu ku badiyay sidoo kaleeto by submission. sidaas si lamid ah 9 kamida wuxuu ku badiyay decision. aan kala qaadna marka waa maxay decision ka marka la leeyahay oo ninkan uu ku badiyay la leeyahay, knockout markuu ku badiyay la leeyahay maxay tahay, sidoo kaleeto submission markuu ku badiyay la leeyahay maxay tahay. Good. marka ay tahay knockout-ka waa xaalad ciyaaryahanka uu sameeyo maaragtay yad oo ciyaaryahanka soo horjeedo oo ku dhufto oo xaalad emergency oo galo ama tusaale istaag kala dhaco harati ama maaragtay feero kale ayadoo la taagnaa oo istaag kala dhaco ama beerka loo geliyo istaag kala dhaco. xaaladaas waxaa loo yaqaanaa by knockout weeyaan. midda kaleeto oo submission-ka haddaan ku xijiyo submission waxa weeyaan ciyaaryahanka tusaalahan in ciyaaryahanada ayuu isdagaalayo oo gacan ama maxaa la yiraahdaa ama dhunto kale ciijiyo kale looga qabtay ama lug la maroojiyay. markaas waxaa la dhahaa ciyaaraha noocaas ee go'aanka ay kaga gaaraan maamulka soo markii ay ka qabtaan oo garsooraha inta badan oo ka qabto waxaa loo yaqaanaa submission loo yaqaanaa. maxaa soo haray decision soo haray waayo waxaan ka soo hadalnay knockout iyo submission. waxaa soo haray markaas waxa la yiraahdo decision goormeeta ciyaarta oo ninkan inuu by decision inuu ku badiyay sidee lagu ogaanayaa. waxaa lagu ogaanayaa decision-ka markay tahay ciyaar laba ciyaaryahan weeyaan wax dagaalamaya soo maahan si u dagaalamayaan dhowr wareeg la ciyaaraa, marmarka qaar 3 wareeg la ciyaaraa, marmarka qaar 5 wareeg la ciyaaraa. 5 wareeg markay ciyaarayaan maxaa dhacayo 5 wareeg waxaa dhacayso inaysan ciyaaryahanadu aysan si toos u kala adkaanin. okay, si toos markay aysan u kala adkaanin waxaa arki karnaa in laba qofood oo dirtay mar walba labadooda aysan guuleysan karin. mid kamid ah jugta ku badnaan doonta laakiin adkeysigiisa wareegyada dhan oo la dhameystay ciyaartii oo weli labada ciyaaryahan ay taagan midna aan si gooni looga adkaan laakiin laga juga badan yahay ay waxay aqrinayaan statistics kan walba oo sameeyay midkii badnaado juga badan geystay ayaa inuu badiyay la siinaya. taasina waxaa loo yaqaanaa decision. waxaa qaadanaya go'aanka maamulka UFC da marka meesha fadhiyo ayagaana kala saareen. marka ninkan waxaa leeyahay 9 jeer oo by decision soo adkaaday, 5 mar oo maaragtay by submission iyo 6 kamida oo maaragtay 20 kiisu guul oo ah by knockout. ciyaar iyadoo ku dhuftan istaag kala dhacay. waxaan daawaneynaa ciyaaraha submission oo ku arki karnaa muuqaaladan aan daawanayno. sidoo kalena waxaan ku arki karnaa knockout, sidoo kale waxaan arki karnaa by decision.
good hadda midaan oo kaleeto oo isla markiiba qoorsaarada uu ku hayo ciyaaryaankan hadduu ka farbaxsan waaye xiijina lagu hayo submission weeyaan isla markaas garsoorka go-aanka gaarayo uu fiirinayo inta badan weliba way la hadlayaan garsoorada ciyaaryaanka dagaalamaya ee gacanta lagu hayo waa la weydiinaya haye xaaladaada waa la wareysanaya haddii uu dhaqdhaqaaq bixi waayo oo kaleeto gacantiisa tijaabiyaan hadday balka tahay oo kaleeto way ka fujiyaan isla markiiba maxaa yeelay ciyaartani maba ahanba UFC yaana dhihinaya maba ahan maxaa la yihahdaa WWE waa xaawiyaan UFC fiiri hadda midaan waa isla midii had jirtaan dabcan yes xaaladiisa adkaatay waa laga fujinaya marka ninka midna waa tan ninkaan xoogaa oo is adkeynaya okay tan oo kaleeto ayadana waa submission of course adkeey haddii lugtaas keliya intay markay ku dhacdo oo ninkaas la dhici lahaa waxay ahaa lahayd by neck out maadaama ciyaartan oo dhammaata waxaan idin leeyahay daawadayaasha iyo mucaashaqiinta UFC-da dadka aad ku daawado waad mahadsantihiin aniguna waxaan ka mid ahay dadkaas aad ku daawado ee jecel ciyaaraha noocaani ah dabcan waa ciyaar ma ahan wax xun okay waxaan idin leeyahay marka insha allahu youtube-ka halla sababreeyo subscribe-ta share-ta iyo weliba haddii kale waxaan idin leeyahay bye bye